kulankan ay qabteen waxgaradka haweenka dhalinyarada magaalada Laascaanood iyo baaq ugu dareen maamulka Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha iyo ka kheyraadka biyaha waxaana sheegeen cilbiyood la sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ka hirgelinayso dooxada tifafileysan waqtigan munaasib ku ah dhulkaasi waxaana xuseen in qodista ceelkaasi oo dhalisay isku dhacyo u dhaxeeya ciidamada militariga Soomaaliland iyo dadka deegaankaasi in ceelkaasi laga joojiyo loona bedelo deegaano kale ka jiraan biyo la'aan iyo abaar baasan waxa xusid mudan in dadka deegaankaasi ay aad uga cabanayaan ciidamo la geeyay deegaanka tifafle kuwaas oo la hubo tiraba laba jeer isku farsaaraan dadka reer guraaga ay diidan qodista ceelkaasi caaqil xasan warsame aadan oo kamid ah cuqaasha gobolka Sool deegaan ahaan ka soo jeeda deegaanka xaaladani ka taagantay oo arimahaasi ka hadlay waxa hadaladiisa kamid ahaa anigu markaan hadlayana waxaan ahay caaqil xasan warsame aadan waxaan ahay ummadda dadka la yiri nabadgelyada ilaalisa anigu waxa weeye shalay anigu dhulka waxaan ku maray sahan dadka dhulka xabadu ka dhacayso dadka dooxada yaal meesha riigu ka taagan yahay nabad waa ka argagaxay dadka rasaas baa ku iyo dunyadiiba lagu sigay waxna waa ku dhacday aad baan uga xumaaday islaamnimo haday jirto anigu arintaa waxaanu ka hadlaynaa xaalad ka taagan tifafle oo xaalad colaadeeda oo iyadoo abaari ka jirtay markii horeba haddana colaadi ku soo biirtay colaadaasoo ay ka dambayso riig la yidhi hay-ad baa meesha ka qodaysa riiga oo dadka deegaanku aanu raalli ka ahayn oo u socon waxaanu leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in laga qabto colaada ciidanka qaranku dadka haddii la soo duldhoobay ee xabadu ku socoto in laga qabto oo laga joojiyo xabada iyo xumaanta socota dadku maanta waxay rabaan taageero wax taageero oo caawiyo u baahan yihiin xabad iyo colaad iyo baraka uma baahna oo ay ku socoto abaaro colaad iyo caaqiba la'aan fara badan oo dad gaar ah ay ku wadaan waxaanu uga cabanaynaa ilaahay waxaanu leenahay arrinta noocaas barakac baa ka dhacay waxaanu leenahay dad baa ku dhintay kuwa ku dhaawacmay Hargeysa kula jooga kuwa dhakhtarkii Laascaanood jiifa kuwa maxaabiis oo saaka la haya xoolaha ku xansuuqmay maatadii caruurii baa barakac ku dhacay ilaahay hadda kuwaan isayn iyaga iyo odayadoodii geesooda waxgaradka ururada haweenka dhalinyarada magaalada Laascaanood ayaa arrinkaasi ka hadlay waxayna madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ugu baaqeen in laga shaqeeyo nabadgelyada magaalada lana joojiyo qodista ceelkaas oo munaasib ku ahayn halka haatan laga qodayo dooxada tifafle waxaan ka hadlayaa arrinta tifafle ay iskaga hor yimaadeen qabiilka jaamacsiyaadka iyo dawladda Soomaaliland ciidamada qaranka ay u adeegsatay nama soo marin mana aanu arag mana aanu maqal dawladdu adeegsanaysa dadkeedii ciidanka qaranka sidaa darteed way ka daraysaa haddii aan laga dayn oo lagu soo dabaalin annagaa keenay meesha Soomaaliland anigii Cali Sadulla keenay haddii ayan taa ka jeesan waanu ka saaraynaa tifafleeska daayo wallahi Laascaanood bay waaysaa taa sidaa darteed waxaan leeyahay iyadoo naga soo jeedo wasiirka arrimaha gudaha sida uu dhaqmay maaha si loo dhaqmi karo ama mas'uul kici karo waxaanu leenahay ha yimaado jaamacsiyaad hortiisa ha yimaado ha ka hadlo ha arko meesha la leeyahay hal qodo ha arko meesha la doonayo in la dagaameeyo waxa ku nool 2,000 oo qoys hadeen waxa ku dhamaado oo ku dhinta xoolihii baa ku baxa oo abaarti ku leeynaysa dadkii u baahnaa taakulada iyo waxsiinta waxa loogu bedelay in shiika lagu weeraro Yuusuf mar labaad waxaan ka codsanayaa nabad in walba danbay u tahay waa dhimay antaanu nahay gabdhaha beesha jaamacsiyaad oo haan walbale oo saaka halkan isugu yimi waxaan u sheegayaa ceelka laga taagay dooxada tifafle ee riiga ah in laga dulqaado culays buu nagu hayaa in laga dulqaado ayaan riigu meel buu ku haboon yahay mana aanu diidanin hadaanu beesha jaamacsiyaadnahay meesha uu ku haboon yahay hanna laga dulqaado waxaanu u sheegaynaa dawladda Soomaaliland hubka ay nagu fooranayaan ee maatooyinkaga lagu fooranayo ee guryahayaga lagu fooranayo ee ragayaga la isku dirayo hanaga dulqaado silaayo culayska hanaga dulqaado kaas wana ceelka ma diidin hadaanu nahay beesha meesha degta ka waata seexatay nabadda ku seexatay mudane madaxweyne waxaad ogaataa in aad nabadda ku seexan doonin gobolka Sool هذا 5 nin baa naga dhaawacmay dhowr iyo 10 adina way naga dhimatay wali waa la leeyahay
lagu leedi maayo haddaan dagshiikaha naga dulqaadin ceelkaa naga jooji oo naga jooji mudan dooxada tifafle waxay ka mid tahay dooxooyinka waaweyn ee gobolka sool hilaadii wax ka yar 15 kilomitir u jirta dhanka waqooyi magaalada laascaanood waxaana muddooyinkii dambe ka jiray ismaandhaaf u dhexeeya dadka xoolo dhaqatada iyo xukuumadda Soomaaliland oo doonaya in ceel biyo laga qodo deegaankaasi waxaana ismaandhaafkaasi dhaliyay dhaawac 4 ruux oo dadka deegaankaasi waxaana arrinkaasi siyaabo kala duwan uga hadlay dadka deegaankaasi maxamed axmed jaamac maxamed bidaanshe telefishinka caalamiga ay waa bari magaalada laascaanood